إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الموضوع aad maqlayseen oo ah barbaarinta cunuga wanaagsan ama ciyaalka saalixiinta ah ama caruur wanaagsan waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, khaasatan waqtigan aan joogno. runtii mowduucaas marka laga hadlayo waxaad dareemaysaa maanta inuu yahay mawaadiicda ugu muhiimsan oo ugu waaqicisan muxaadarooyinkeenna. muxaadaradaas waxay ku baysgaraysan tahay xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam uu imaamu muslim wariyey saxiixiisa oo uu nebigu leeyahay: wa inna liwaladika calayka xaqa, cunugaagana xaq buu kugu leeyahay. cunugaagana xaq buu kugu leeyahay, nebigu leeyahy sala allahu alay wasalam. muxaadarada insha allah waxaan ka hadli doonaa 4 arrimood. waxaan ka hadli doonaa xuquuqda cunugu uu kugu leeyahay intaadan dhalin ka hor, iyo xuquuqda cunugu marka uu dhasho uu kugu leeyahay. waxaan kale oo ka hadli doonaa marxalo ama ama age cunuga da'diisa ugu muhiimsan, oo da'daas oo laga bilaabo 2 sano ilaa 10 sano laga gaaro saad cunugaaga u tarbiyayn lahayd. waxaan marka ugu dambaysa ku soo gunaanidaynaa talooyin ama naseexooyin qofka waalidka ah cunugiisa siduu ula dhaqmi lahaa ku saabsan. ikhwaani, waxaad ogtihiin haddii aan maanta idin weydiiyo su'aal, haddaan isweydiinno qof walowba cunuga aad dhashay habkii aad ku dhashay iyo procedurkii cunugaas uu ku dhashay meeqaybay kugu qaadatay inaad cunugaa heshid. qof kasta haddii su-aashaa isweydiiyo wuxuu arki doonaa taariikh dheer oo taariikh nololoodkiisii ka mid ah oo uu soo maray intuusan cunugaa dhalin. wuxuu dhihi doonaa: guur baan damcay, qofaan guursadaan raadiyey, lacag baan urursaday, odayaal baan u diray gabadhii reerkoodii, aroos baan dhigtay, gabadhii baa la ii nikaaxiyey, waan la aqalgalay, way uuraysatay, uurkii bay ku jiratay, mantag iyo xanuun iyo isbitaal iyo intaasuu ku jiray 9 bilood. waana midda ilaahay uu ku magacaabay wahnan calaa wahnin, waa culays iyo dhibaato ilaa cunuga uu ka dhasho. qof kasta taariikh dheer buu soo maray, intaasna cunug buu raadinayaa. marka cunugii dhashay waan ku bishaaraysanaa, waan ku farxaynaa. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay: almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati addunya. caruurta iyo maalku waa quruxda adduunka, waa lagu farxaa. qof kasta marka cunugu dhasho wuu ku farxayaa. dhibkii kaama harine, cunugii waad korinaysaa, umul baad la gelaysaa. aabbaha laftiisa dhinac buu umul ka yahay oo dhibkii baa haysta, isbitaal buu u qaadayaa, habeenkii buu kugu soo jeedayaa, waad korinaysaa ilaa uu ka gaaro cunugii wakhtigii uu ku fahmi lahaa oo aad wax u sheegi lahayd, ood wax bari lahayd. cadaalad miyaa marka
masama waxaa ku jirtaad u maleynaysaan xikmad cunugii intaasoo dhib ah aad u soo martay markii uu caqliyeystay oo uu soo koro inaad cartoon iyo TV iyo intaad ku tuurtid meel kale aad adigu faraha ka qaadid ma caqli ba tusaalahaas wuxuu la mid yahay nin guri dhistay oo kale oo qurxiyay oo dayn qaatay oo kuraas dhigay oo daahiye ku xiray oo markuu wax walba dhameeyay kuraas wax walba uu dhigay albaabada intuu u ballaqay yiri mukulaalaha iyo eeydu guriga ha ku ciyaareen oo ha dageen saasuu la mid yahay sababta cunugaad intaa soo korinaysay ba TV iyo cartoon iyo school public school kaliya aad ku fasaxday oo ku sii daysay waana mid ay ku magacaabaan culimadu wa idha al-maw'udatu su'ilat ayu soo galaya cunug wala dilay cunugaas amal wala dilay wuxuu quraanku noo tilmaamayaa dadka caruurta dhalay inay u qaybsamaan laba qaybood qolo ciyaalkaas ilaahay uga dhigay imtixaan iyo fidno iyo cadow uga dhigay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay inma amwalukum wa awladukum fitna caruurtiina iyo maalkiina waa fitan waa dhibaato inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum xaasaskiina iyo caruurtiina waxa kamida kuwa cadow idin ah ba kamida cunugaagiyo cadow ku noqday ka waran oo dhib kugu noqday waad ku rafaadaysaa wuxuu quraanku dhinac kale noo tilmaamayaa dad ciyaalkoodii ilaahay uu uga dhigay ilqabowsi iyo beer qabowsi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلهي عرورتنا وحنا وقدكتا القبوس نوقدك أنكو القبوسنا ولا شك كمجرو قف كستو إنك نجمد أمانة إنه هذين يعنق وكو القبوس شك ما الأرين تاسي هذا واقع في لسان ما أنت أنكنا والله وأنا وحن موضوع عن نقو خصب إنا كهذا الله والدين تبضن كودو ويقانن سي عيالك أقوديان عانا أسيان عنتا أسيان در أقو حيران اسكول أقو ديران أسيحيان تشيك أب يا عافيمات أمريان داو أسيان عذر أمريان برفوم أمريان ويقانن لكن بضن كودو ما يقانن عنق عقلي سسي لو كوريو عنق الدين تسسي لو كوريو عنق أخلاق تسسي لو كوريو ما يقانن وأنا أرين حقيقة أريداسان مركا وحان ربنا إن شاء الله إنان كهذا الله وحاكا لإخواني عنق وناكسن إن قفك الله سيو لبا الصواب يكتي مادا عنق وناكسن قفك إنو هلو وعيال كيسو وناكسن هذان لبا أرمض مد قد بكو هلا مد قفتي أو إلهي بحيو إلهي وو بحيا صوتها إلهي أساقا عنق هباية أصدق تربية عنق وناكسن قفك وسين كرا ولذلك واحد أركيسان قف إسك ضيعان أو عنق وناكسن أو بارئ إلهي سيء طلباتنا وحي كنت مادا تربية عنق إلا تربية أو وحلا براء أو بربارية كنت مادا هدي سببتي هراء أدويدد واتكسبان كرتا ولذلك واحد أركيسان نبي يدي إلهي سيدو إلهي نوغا قسيي waxay ku celcelin jireen ilaahay ciyaalka noo wanaaj nabiyullaahi ibraahim waxaad arkaysaa dhahaya asagoo ku celcelinaya rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin soo ku celcelinaya wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ilaahay aniga iyo caruurtayda inaan sanamyada caabudna naga foge fiiri wuxuu leeyahay ilaahay in caruur aan dhalo sanam caabuda oo gaala ah oo macsiyo samaysa iga ilaali markaasuu haddana wuxuu leeyahay in rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salah rabbi yow caruurtaydii meel baan dejiyey salaadana way tukadaan si ay salaada u tukadaan ilaahay ha dayicin cunugi salaad buu tukadaa wuu wanaagsan yahay ilaahay ha dayicina adigu xifdi waxaad arkaysaa nabiyullaahi zakariya asagoo dhahaya suuratu maryam say ka sheekaynayso wuxuu leeyahay asagoo ducaystay marar badan oo ku celceliyay ayuu wuxuu leeyahay waj'alhu rabbi radiya ilaahay cunugaad isiisid cunug raali laga yahay ka dhig cunug wanaagsan oo baari ah oo aniga igu xiran oo warkayga maqla oo markaan dhinta ii soo duceeya oo ilqabowsi ah ilaahay iiga dhig
ومد أمر البكتو عيستان وأذكر كيسان إن ضدك وح جبضا أي لعقت أب حنيان سعون قال له جدو عيو ساسي النبي ذي الله كدو عيسين جيرين حتى أولي هي الصقوا قيلنا يا إلهي أولي هي الصقوا محراب كتاجنب وحولها إلهي وعرور طرية طيبة إلهي وإسي إخواني عيالك وناقو ذا مركا الله إلهي وعيال وناكسن إسي عنق مركا ونشبا وإن أذوقنا كد داشي ساد عنقا كوكرين لهيد ساكو تربيين لهيد هدي عنق وينادو وأتسك ضيعضو إنه هذا ماشي أنا نجوجنا عنقي وان كوريني وينادي وان اسك ضيعني قال أن كسي دحديني سكول بان كسي دحديني هذا نو حربنا إنه في عناده صورة كلمة ما وحنا صورة كلمة هين وهذا الوحاجر قبل يبقى وحوها عربي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء هذا القف قرد الضوء وحرته والله بدأ قعمت كحرته oo bad ku dhex tuurto oo dhahdi biyaha iska ilaaliyo haqooyin ma dhici karto inaad cunuga gaale iyo public school ku sii dhexdeeso tiraahdid diin fiicno oo wanaagsan oo ma dhici karto mid kalena wuxuu lahaa waman ra'a ghanaman fi ardi masba'atin qofkii ari ku raaca xoolo ku ilaaliyo meel waraabe iyo xayawaanaad wax cuna leh wanaama anha tawalla ra'yaha al-asad oo ka seexda cunugii xoolihii qofku uu raacayay libaax iyo waraaba qaadanaya cunugaaga hadaad ka seexatid oo iska hilmaantid waxa qaadanaya gaal iyo waraabe iyo balaayo dhan ba qaadanaysa idan mawduuca hadaan guda gallo unsur liwaladika qabla an yulad cunugaaga intuu sa dhalanin horta u gargaar sida ugu gargaaraysa cunugaaga maalin buu hiila kaaga baahan yahay maalintu hiilada kaaga baahan yahayna waa maalinta aad hooyadii guursanaysid ama aabihii aad guursanaysid cunugaaga maalintaas miftaaxa ugu horeeya iyo waxa ugu muhiimsan waa markaad guursanaysid cunuga waalidkii zawjo wanaagsan reer wanaagsan ka dhalatay quraankii taqaana cunugii tarbiyeyn karta inaad guursatid aabbo wanaagsan oo quraankii yaqaan oo diintii bari kara cunugii inaad guursatid marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida waxa uu yimid nin ka eed sheeganaya cunugiisa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay cunugayga aniga iima eka uu madow yahay fiirbal kaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa dhici karta wiilkaaga in uu u ekaaday oo uu ka soo siibmay xaaskaaga familigeeda macnaheedu waa maxay reerka xataa gabadhu ka dhalatay ama ninka ku qaba ka dhashay cunuga waxay ku yeelanayaan saameyn